laba dhalinyaro oo Nairobi aduu wax isku yeelay garow maxaa keenaya wax ilaahay abuurtay oo keenaya mala waxa inoo soo raray social media hawshaas Nairobi way ka dhamaatay qoladii falka geysatay oo waadeen waxba afka ilaalimayna aniga way soo waceen iyagoo apologies bixinaya laba dhalinyaro oo Nairobi aduu wax isku yeelay garow maxaa keenaya wax ilaahay abuurtay oo keenaya mala waxa inoo soo raray social media marka inaga leeyna yiraahdo waxa la yahay dalka amnigiisa xasiloonadiisa nabadgelyadiisa hal la ilaaliyo qofkii falxumo iyo amni xumo isku daya ha ka waantoobo qofkii raba uu niyeysan ha ka waantoobo faraha ka qaada waxaas qofkii lagu qabto ama lagu tuumana sharciga la horkeenay hay'adaha garsoorka la horkeenayaa laba dhalinyaro oo Nairobi aduu wax isku yeelay garow maxaa keenaya wax ilaahay abuurtay oo keenaya mala waxa inoo soo raray social media marka inaga leeyna yiraahdo waxa la yahay dalka amnigiisa xasiloonadiisa nabadgelyadiisa hal la ilaaliyo qofkii falxumo iyo amni xumo isku daya ha ka waantoobo qofkii raba uu niyeysan ha ka waantoobo faraha ka qaada waxaas qofkii lagu qabto ama lagu tuumana sharciga la horkeenay hay'adaha garsoorka la horkeenayaa hawshaas Nairobi way ka dhamaatay qoladii falka geysatay oo waadeen waxba afka ilaalimayna aniga way soo waceen iyagoo apologies bixinaya طبعا انت kala too xagga jirtana sidoo kale dadku ehel meelol bay joogan qof xun waa ku dhex jiraa inta fiican ba ka badan qofka xun qof iyo laba haday xumaato inta fiican ba ka badan bilaadku ma wada xumaa bilaadku waa walaalo weeye waa ehel weeye waa muslim weeye waa Soomaali weeye meel walba qof xun waa jooga inaga inta xun baa inuu ku jirtaa ma xisaabay leedahay waa maya waxaanu leenahay hawsha meesha lagu daayo khiyaarnimaha looga shaqeeyo walaalnimaha looga shaqeeyo dadka isku dhawaayo ehelkaayo ilmaadeerta weeye waxa wax kala sheeganaya cidayna fidmaha kaga qayb gelin haddana wax weyn ma aysan dhicin wax yar baa dhacay waxa yarna apologies baan ka bixinaynaa ilaahay idankiisa xagga iyo xaggaba anagoo mas'uuliin u ah kuwa Nairobi joogay iyo kuwa Garowe joogay anagoo مسؤولين waa apologies baan ka bixinaynaa waxaan leenahay hal laga raali ahaado Soomaali weyn ha ka raali ahaato waxa maqlaysaan oo dhagtiina ku dhacayso wax weeye uma qalantaan Soomaaliyay inta yada kale tana anaga ka raali galinayna hawsha sida lagu daayo nabadoonnada iyo injineerka ay uga hadleen